Madaxweyne Farmaajo oo salaadii Jimcaha ee maanta ku tukaday masjidka shuhadada ee madaxtooyada ayaa salaadii kadib khudbad uu ka jeediyay masjidka waxa uu ku baaqay in si shuruud la'aan loo joojiyo dagaalada ka socda deegaanka tuka-raq isagoo wax laga xumaada ku tilmaamay in xilligan oo bil Ramadaan la daasho dhiig dad muslimiina oo waxba galabsan waxana uu sheegay madaxweynuhu in aanay dawladdu waxba kala harin deminta colaadaas. waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dadka Soomaaliyeed ee dhiiga ku daadinaya bilaa macnada ee magaalada tuka-raq oo dad badan ku dhinteen dad badan ay ku dhaawacmeen waxaan leeyahay xabad joojin hal la sameeyo dhibka hal la joojiyo dhiiga hal la joojiyo waa bil Ramadaan Allah loo noqdo dadka dhimanaya wiilasha dhimanaya waa wiilal Soomaaliyeed waxaa la doonayaa madaxda meesha joogta inay ka geysato bishaan Ramadaanka ah wanaag in laga shaqeeyo annagu ka dawlad ahaan wax alla wixii karaankeena ah waa sameynay waa isku daynay alla hortiisa inaan baajino dhiigaas wax badanna waa ka shaqeynay si aad oo aan la maleyn karin yaan arintaasi aan damacnay inaan uga hortagno waxa kaliya noo haray waxa weeye waa wax ay awoodna reebtay oo dawlad laga rabay oo ahayd inaan ciidan kala dhex geeno meel walba oo dad Soomaaliyeed ku dagaalayaan aan kala geeno ciidan oo aan ku dhex galno si nabada meel kasta ay dadku ku dagaalayaan. dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay dhammaanba shacabkii iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee doorka fiican ku lahaa caawinaadda dadka ay duufaanada roobabka wata ku dhufteen deegaanada Awdal iyo gobolka Bari isagoo dhinaca kalena mahad celin u jeediyay dawladihii gacanta ka geystay in ay caawiyaan dadka ay dhibaatooyinkaas gaareen iyo waliba kuwa ay saameeyeen fatahaadda wabiyada waa Jubba iyo Shabeelle. madaxweynaha ayaa ka hadlay falalka kooxaha nabadiidka ay ku bartilmaameedsanayaan shacabka aan waxba galabsan oo uu xusay in looga adkaan karo isku duubni iyo shacabka oo la shaqeeya laamaha ammaanka waxaana madaxweyne Farmaajo uu muujiyay in uu qaba rajo in kooxahan dhawaan laga adkaan doono. qolooyinka nabadiidka ahna waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan mar walba xasuusiyo dadkan sheeganaya islaamka oo u soo baxay inay ummadda islaamka ah dhibaateeyaan inaan ka hortagno si jamaca oo guud ahaan looga hortago oo aan lagu hadlayn kaliya askari aan lagu hadlaynin maxaan ku raahdaa dawladda aan lagu hadlaynin maxaa yeelay meesha ay ku jiraan waa naqanaa meesha ay ku dhuntaan waa naqanaa meeshaas ay joogaan dad baa jooga dadkaas haday la shaqeeyaan amniga oo ay soo sheegaan waxa xaqiiqo ah dhibkooda inuu yaraanayo askarigu geed walba ma taagnaan karo guri walba ma taagnaan karo waxa amniga waxa haya shacabka ah qof kasta oo Soomaaliya mas'uuliyad yaa ka saaran inuu la shaqeeyo amniga la shaqeeyo inuu la shaqeeyo dawladda si dawladdaasi ay u shaqeyso ay xoog u yeelato oo ay hana qaado waxa laga rabaa qof walba inuu mas'uuliyadiisa qaato insha Allah waa guuleysanaynaa waxa ay muuqda iftiin wanaagsan waxa ay muuqata inshaaro wanaagsan haddii sida hadda ay wax ku socdaan aan ku wadno oo dadku u midoobo oo gacmaha la isqabsado oo qofkii khaldan la yiraahdo bal u kaadi